guddida ka hortagga caabuqa dunidu u maaral adahayo coronavirus ee gobolka Togdheer oo hadda kulan isugu yimi halkani oo xafiiska maamulka gobolka Togdheer ayaa waxa ay fariimo kala duwan u direen bulshada ku dhaqan magaalada Burco iyagoo go'aamo culusna ka soo saaray goobaha bulshada isugu yimaadaan shalay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu sii daayay inay jiraan laba kiis oo maxay ahayd Soomaaliland ku soo biiray oo ku saabsan xarunka coronavirus oo aan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka rajeynayno inuu inaga hayo dhibaatadiisa inaga hayo sida daraadeed si aynu kor ugu qaadno oo aynu isu ilaalino oo aynu caafimaadka bulshada kor ugu qaadno waxa la farayaa dhammaan mujtamaca in ay mamnuuc tahay meelaha la isugu yimaado dhammaan xaflad oo dham in ay gobolka ka mamnuuc tahay ha yaraato habase weynaatay hudheelada inaan lagu qaban karin wax xaflada aroosyo lagu qaban karin baadhiye lagu sameyn karin xaflada lagu qaban karin seminar lagu qaban karin waxa jirta oo la soo sheegaya inay jiraan malcaamado dib u furay malcaamadihii cidii hawshaas ay ku cadaato waxa la horkeeni doonaa sharciga cidii ku tala jirtaana waxaan imika u sheegaynaa inay joojiso ilaa iyo muddadii ay loo qabtay ee guddida heer qaran ay qabatay sidoo kale waxa mujtamacan ku wargelinaynaa inay u dhagan nuglaadaan awaamiirta iyo talooyinka iyo wacyigelinta loo soo sheegayo in nadaafadda kor loo qaado oo waxa weeyaan nadaafadda cid kastaba kor u qaado oo qoyska laga bilaabo oo guriga laga bilaabo oo meherada lagu xigsiyo oo magaalada lagu xigsiyo waa tii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadku oo shalay iclaamiyay in laba qof laga helay Soomaaliland mid Berbera laga helay iyo mid Burco laga helay marka marxaladii hore ka hortagga way soo dhaaftay marka waxay noqonaysaa in loo diyaar garow wax ka qabashada cudurka marka aynu ka nimaadno marka xarunta dhexe gobolka waxaan iminka diyaarinay xaruntii hadii dad buka ay yimaadaan lagu daryeeli lahaa shaqaale la daryeeli lahaa waa la diyaariyay halkii lagala soo hadli lahaa qofka hadii uu qof xanuun dareemo lambarka telefoonka lagala soo hadlayo xarunta heeganka cusbitaalka ku taala 713322 weeyaan marka qofkii calaamado isku dareema ma aha inuu mar walba xarunta caafimaadka ku soo cararo heegankaas la soo hadlaya heegankaas tala siinaya dadka badankooduna guriga iska joogayaan qofkii calaamadaha dareema waa inuu gurigiisa isku hayo waayo inta aad soo soconayso intaas oo qof baa laga yaabaa inaad soo qaadsiiso hadii laga maarmi waayo marka talooyinka wasaaradda caafimaadka qofka heeganka ku jira ayaa qofkaas soo talaabin doona xarunta halkan laga diyaariyay baa la keenaya ninka la sheegay waxaan rajeynaynaa subaxan saaka inuu yahay nin caafimaad qabo ayaan anagu maaragtay filayna ama warbixinta baan ku haynaa inuu yahay nin caafimaaday laakiin waqtigii la qaaday muxuu ahaayeen dhiigiisa waa laga yaabaa in xanuunkaasi jiro in gaaladu waxay tiraahdaa prevention is better than cure carabtuna waxay tiraahdaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj marka xanuunkani waa xanuun haddii aynu caafimaadkeena iyo sixadeena iyo aynu hagaajino iyo sanitationkeena aynu 90% ka badbaadi karno anagu ciidan ahaan booliis ahaan awaamirta laga soo saaray halkan ama horaba loo soo saaray si horaba aanu sheegnay waxaanu ka qaadan doonaa roolka nagaga aadan insha Allah bismillaah kariim cid kasto oo u hogaansami weydana talaabada sharciga waafaqsan baanu ka qaadi doonaa ee ka dhaga adeegta awaamirta halkan ka soo baxday iyo kuwii hore looga soo saaray guddida qaranka soo saartay talaabaan ka qaadi doonaa insha Allah bismillaah kariim saacada laga bilaabana meel furnaan kartaa ma jirto oo la isugu iman karo kubadii waanu joojinay meel lagu ciyaarayay meelaha muxuu ahaa fiidiyoada la furay waanu joojinay meelaha hadii alla ku roon yahay iskuula si qaldan loo habeenkii loo dhigaa jira iyagana abaawir iyo amar baanu ka bixinay maxaabiista intii waxaan soo kordheenba maxbuuska maxkamaddu ay soo xukumayso waxa la soo mariyaa goobaha caafimaadka ayaa la soo mariyaa waaranka ama rumaan ha noqdo garsugo ha noqdo ama xukun ha noqdo waaranka loogu keenaya annaga xabsi ahaan waxa ku lifaaqan warqadii caafimaadka ee baaritaankiisa waa ayad quraana weey junuudaha ilaahay soconaya cid ogaan karta iyo cid arki karta midna ma jirto laakiin waxa weeye inagu bini'aadin baynu nahayo waxa loo baahan yahay fariinta yar inuu isu sheegayno inaynu ku dadaalo Shacab Xasan Dheere telefishinka Sahan Burco